الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين 20 سببا للعتق من النار في رمضان. halkan waxaynu ka bilaabaynaa qeyb kale oo ku saabsan 20 arrimood oo haddaad samayso naarta lagaa xoraynayo. allahu akbar. 20 arrimood oo qofkii sameeya naarta laga xorayn, ama ma aha 20 dhan oo wada samaysa, mid ka mid ah haddaad samayso waa sabab ilaahay naarta kaaga xoraynayo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. naarta waa cidqi baa ladhayaa, xorayn lagaa xoreeyey oodan gelaynin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. rasuulka wuxuu yihi ina lilaahi tacaala cutaqaa fi kulli yowmin waleyla, yacni fi ramadaan. yani ilaahay wuxuu leeyahy dad laga xoreeya naarta maalin kasta iyo habeen walba bisha ramadaan. qof kasta oo muslimina wuxuu leeyahay habeen iyo maalinba dacwatu mustajaaba, duca la aqbalo. gaar ahaan xadiid kalea wuxuu sii sheegayaa cinda kulli fitrin cutaqaa, marka la afurayo buu ilaahay dadka ka xoreeya subxaanahu watacaala, naartayuu ka xoreeya. haddaba dadka waxaa laga soo qaadaa inaad addoon u yihiin dembiga iyo israafka, ayaa addoon loo yahay. waxaa loo yahay maxbuus iyo qafaal baad ugu jirtaayoo xabsi baad ugu xidhan tahay. laakiin dulliga macsiyadu qofku u xidhan yahay hadduu ka baxo oo naftiisa isagu hogaamiyo, wuxuu noqonayaa qof daacadii ilaahay ku jira, wuxuuna noqonayaa muluugta iyo ashraafta dadka sharafta badan buu ilaahay agtiisa ka noqonay. marka su-aal baa muhima in la isweydiiyo, naftaada iyo dembiga miyagaa ku hogaamiya mise adaa hogaamiya? isku day qof walba inaad su-aashaa ka jawaabto, adugu noqoto kan hogaaminaya oo waxaad rabta samayn kara, oo adugu naftii ada meel ugu xidhnayn. haddaba alghaniima, haddii dadka dembigeenii batay waa khaniimo. maalmahan aan ku jirno weliba 10 dambe bisha ramadaan waa jaanis aan la garanaynin inuu kugu soo noqon doono mar kale, allahu aclam. rasuulku isagoo abubakar oo jooga ayuu uga markhaati kacay, uu yihi adugu waxaa tahay abubakarow, anta catiiqullahi min annaar, naarta ilaahay mid laga xoreeyay baa tahay. waa xadiis sheekh alalbani fi saxiix iljaamic uu ku saxiixiyey. haddaba 20 arrimood baan sheegaynaa baan niroo naarta laysaga xoreeyo. waa inaad isku daydo inaad 20ka arrimood u qasado. waa inaad isku daydo inaad 20ka arrimood la timaado, qaarna ka fogaato, wixii lagaaga degayna ka fogaato, wixii la imow luudhaan aad la timaado. waa inaad indhahaagu hortooda aad dhigato. waa inaad ka dhigata barnaamijan yowmiyan wa mashruucan iimaaniyan, yacni program iyo waxaad maalin walba samayn lahayd aad ka dhiganto. mashruuc aad samaynayso waa inaad ka dhigato. maxaa jira wax loo dhigo la heli maayo. ugu dambeynta gebagabadu waa cidqi min annaari, naarta oo laiska xoraynayo. faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lguruur. qofka ilaahay naarta uu ka fogeeyo jannadiisa ku arsaaqo, qofkaasaa liibaanay, ogaada. adduunyaduna waa uun dhalanteed iyo wax 2 maalmood oo lagu jira weeyaan. haddaba asbaabta cidqiga oo naarta la isaga xoreeyo waxaa ka mid a, midka ugu horeeya waa alikhlaas. ikhlaasku maxaa laga wadaa? ikhlaasku waa camalka aad samayn oo ilaahay dartii aad u samaysa weeyaan. xadiis baa wuxuu rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam, allah subxaanahu watacaala addoonka uu helo maalinta qiyaamada ah isagoo dhahaya, adduunka ku dhahayay laa ilaaha ila allah, qofkii sidaa dhahi jiray isagoo yabtaqi biha wajha allah, ilaahay dartina ula jeeday. ilaa hadduu jiro qof addoono adduunka saa ku dhahayay, alla dartina ula jeeday, istusus ismaqashiina aan ku jirin, xarama allahu calayhi nnaar, ilaahay naartuu ka xarimayaa qofka. balu fiirso, waa cidqi iyo xoreyn naartii lagaa xoreeye weeyaan. waa xadiis imaamu bukhaari soo saaray. haddii marka naarta lagaa xoreeyey, gurigaagu waa xagee? waa aljanna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. maxaa kaa xiga? kelimatu laa ilaaha ila allah. waa inaad tahay qof muslima, waa towxiidkii oo shuruudeedii wadata, oo shirkiyaadkii layska saaray aan la soconin ayaa la rabaa. taasi marka calaamaadkeedu waxay ku tusinaysaa nishaad daacada ilaahay iyo firfircooni bay ku siinaysaa. dayib, waxaa la weydiiyey dadkii hore qaar ka mid ahaa,
goorma ayuu qofku ogaanayaa inuu mukhlisiinta ku jiro, khaaliska uu yahay oo ilaahay darta camalkooda ula jiro? waa markay majhuudka iyo daacada ilaahay intay sameeyaan ay dadka agtoodana aynan waxba kaga doonaynin. hebel baa cibaado badan iyo hebel baa kan iyo hebel baa fulaan, aynan qofna ayna kaga rabin. qofka doonaya inuu darajadan helaay waa inuu marka dadaal badanna uu u sameeyo, waa inuunan ilaahay subxaanahu watacaala ka tusiya naftiisa wuxuu alla raalli uga noqdo subxaanahu watacaala. marka taasaa waxaa la rabaa inuu naftu, waxaa la yidhaha shayga nafiiska oo wanaagsanna wadadiisu way dheer tahay, tacab baana ka sokeeya iyo dadaal badan. haddaba idaa kunta mukhlis, haddaad doonaysa inaad mukhlis oo saadiq ah oo ilaahay subxaana watacaala run u sheegaya, waa in aad maaragtay arrintan marka laguu sameeyo, laguu sheego, aad maaragtay si saxa uga jawaabto ood ku shaqo gasho oo camalkaaga iyo towxiidkaaga aad khaalisan liwajhi ka dhigto, shirkiyaadka iyo istustus iyo ismaqashiinna aad ka fogaato. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.